gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salmaan Rawax ayaa maanta daafuray wajigii labaad ee mashruuca hoggaanka iyo nabadda oo hay'adda Keer ka fulin doonto 20 tuulo oo hoos yimaada degmada Ceergaabo waxaana munaasabadii daafurka mashruucaasi oo lagu qabtay howlka shirarka ee xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergaabo gudiyada tuulooyinka mashruucani ka faa'iideysan doona madaxda hay'adda Keer iyo marti sharaf aad u tiro badan maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday faa'iidada mashruucani uu leeyahay deegaamada laga fulin doono ama laga hirgelin doono waxaana maayirku si weyn ugu mahad celiyay hay'adda Keer oo barnaamijkan fulinaysa arintan aan maanta halkan u fadhino oo fayskii labaad ah waxay ahayd barnaamij cusub oo aan hore uga jirin degmada Ceergaabo ama dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gebigeeda runtii aad baan ugu mahadnaqayaa laakiin maanta nasiib wanaag wuxuu noqday tuulooyinkiinii hawshii fuliyay mashruucii labaad maanta oo isaguna miiska saaran inaan idin saxeexno arrintan waxa la yiraahdaa hoggaan iyo nabad waa horumarka tuulooyinka waa nabadda tuulooyinka waa isku xirka dadka waa isku xirka tuulooyinka iyo degmada waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xubno aad u tiro badan oo dhamaantoodba ka marakacay faa'iidada barnaamijkan uu leeyahay deegaamadooda iyo siday uga faa'iideysteen waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay Axmed Cali Mire oo ku hadlayay afka hay'adda Keer oo isaguna dhankiisa faahfaahin ka bixiyay mashaariicda hay'adda Keer ay ka fulisay gobolka Sanaag muddadii ay ka howlgalisay kuwaas oo ay ugu horeeyaan buu yidhi dhinacyada waxbarashada deegaanka biyaha jidadka iyo kor u qaadida kaabayaasha adeegyada bulshada ujeedada mashruuca waxa weeye in la soo dhiso tayada maamulka tuulooyinka hoos yimaada degmada Ceergaabo oo lagu soo xiro degmada si halka uga dhawato wada shaqayn wuxuu isugu jira qaybta wabaraa oo la kobcinayo tayada iyo xirfadaha maamulka tuulooyinka iyo marka dambe loo dhiibay mashaariic ay fulinayaan iyagoo meel marinaya wixii ay barteen waxa iminka noo dhamaaday fiiskii hore gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Salmaan Rawax oo isaguna gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay hay'adda Keer waxaana gudoomiyuhu intaasi raaciyay inay maamulkoodu soo dhaweyn doonaan cid kasta oo mashaariic horumarineed ka fulin doonta guud ahaanba degmooyinka gobolka Sanaag dawladdu waxay u soo shaqeynaysaa in meesha wax yimaadaan hay'adaha dadaalay ee wadada rafka u soo bareeray waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaya hay'adda Keer oo runtii waxtarkeeda ay u taabanay aan filayana in inteeda dambena aynu kasban doono mashaariicda dambe ay noo doonaysana inaynu noqono gobol iyo degmaba maamul waxaan u heeganahay in aanu hay'adihii wixii kasta suurtagelayayba aanu suurtagelino Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV-ga qaranka Soomaaliland Ceergaabo.